Nadiif waxaad tahay PhD holder. عشان أنت عم تخبر إيه ولي برشلونة وايش وأنا ما كمان دلوقتي أنت عسى أرضية الجامعة. Muuse waxaan rabaa inaan ogaado qurbo inuu wax wanaagsan yahay laakiin may ogaa in Right now, we are in the process of building the new Somalia. And we really wanted one of the pillars of the new Somalia to be books and knowledge and literature so that we can have a more tolerant, more literate, and more peaceful society. waxaa igu dhaliyay maadaama dhalinyarada Soomaalida ay tahay 75% waxaan muujinay in dhalinyarada ay wax qabsan karto inay garaad leedahay ay fikiri karto wax qoraal iyo wax akhrin ay soo bandhigi karto taas ay ahayd muhiimadeeda ugu weyn soo kale maadaama aan dumar ahayn waxaan u horseeday gabdhaha inay ayagu wax qabsan karaan gabadha wax la barayna inay faa'iido fara badan leedahay aan bulshada tusay. Now I'm feeling that we are ending the history of being oral society. We are beginning a new era of writing, and I'm very proud to be part of it. كان كل أننا زي لحنا وفرح سنة دام ماشي أنا كنا الله يدق أنت بدن إيران قونين وبوقت أنا وكان معنا بندقي أد بنا وفرح سنة معنا تذكر صوب بقول تذكر أد بينهم العليان وكا فدام أي كرتي وحبر شدي تعلمت أي كرتي أد بهذا النيرة وحوح يفسدوا بدن هذا النيرة معنا بوق والبوها النقطة أما دقن كان نقطة أما سومالي كان نقطة أخذت هذه بقول كيف سديت ويا هذا معنا أد بكرسها أخذت This is a great sign of normalization in this country. I think that now almost 70% of the population is young, and then now we see them here. We consider them the real owners of this country.